kulanti wanaagsan halkan warqad tube waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliyeed kaga heyno kuwada ugu waaweyn kala shaki weyn oo ka dhax urtay gudoomiye Mursal iyo madaxweyne Farmaajo xog laga helay sababta gudoomiye Mursal iyo ku-xigeenkiisu ay ugu biireen shirka musharaxiinta mucaaradka ayaan idin haynaa qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo aqbaleen isbeddel ay ku sameeyaan xubnaha guddiga doorashooyinka ee lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin nisa iyo xafiisyada dawladda Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay kulamo xoogan oo xalay siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho xog dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa kulamadan oo ka kala dhacay Villa Soomaaliya Hotel Jasiira iyo qaybo kale oo ka mid ah caasimadda fariin ka timid ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo loo soo gudbiyay madaxweyne Farmaajo kadib la taliyaha gaarka ah ee Abiy Ahmed oo Muqdisho soo gaaray maxaa looga hadlay kulan gaar ah oo madaxweyne Farmaajo uu la yeeshay wakiilkan senator Muuse Suudi oo Mahdi Guuleed iyo Fahad Yaasiin ku eedeeyay hurinta xiisadda siyaasadeed ee xilligan taagan isagoo ugu yeeray beelaha ay ka soo jeedaan reer Aw Xasan iyo Soomaaliland inay qabsadaan maxaa ka soo baxay kulanka golaha maanka ee qaramada midoobay ay ka yeeshaan xaaladda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warka insha Allah waana 3 taariikhdu ay ku beegan tahay 24 bisha 12 November sanadda 2020 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigoo gaarsiinaya saaxiibadaada kuna shargaranaya baraha bulshada waad ku maasantahay qaybta commentiga haddii aad noogu raabta aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowno warka warqaatiyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo uu heliyo ku-xigeenkiisa Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude ayaa xalay ka qayb galay shirka musharaxiinta mucaaradka uga socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka warar lagu kala soo yahay oo heshay warbaahinta ayaa sheegaya in gudoomiye Mursal oo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kala hadlay xog helid la'aanta ka haysata sida ay doorashada u maamulayaan saaxiibadiisa Villa Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa weydiistay madaxweynaha in lala socodsiiyo sida ay wax u socdaan lagana qayb galiyo shirarka muhiimka ah ee doorashooyinka maadaama uu yahay garab xukuumadda dhinac taagan oo la shaqeeya wararka ayaa waxay sheegayaan in mas'uuliyiinta kala shaki uu soo dhaxgalay kadib markii la sameeyay go'aano badan oo aan la wadaagin gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan xilli uu dagaal xoogan u soo galay madaxtooyada darteed sharciyo badan uu jabiyay sidoo kale gudoomiyaha ayaa dhankiisa bilaabay kulamo uu la qaadanayo siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood isagoo aan la tashan Villa Soomaaliya oo ah halka laga maamulo waxa uuna ugu dambeyntii ku beeray shirka musharaxiinta mucaaradka uga socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiye Mursal ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo Fahad Yaasiin taliyaha hay'adda nisa ayaa la sheegay inay yihiin saaxiibo heshiis ku ah sida ay hadda dawladda Soomaaliya u maamulayso doorashada Soomaaliya balse waxa maalmihii dhawaa soo baxayay kala shaki xoogan oo dhexdooda xubno Mursal ku dhow qaarkood ayaa waxay sheegeen in maadaama dana badan laga dhameystay gudoomiye Mursal ay hadda u muuqato in aysan Villa Soomaaliya u baahnayn taasi oo ay ku sheegeen qalad weyn maadaama wali dalka aysan doorasho ka dhicin isagana uu gudoomiye ka yahay Mursal ayaa garab weyn wuxuu ahaa Villa Soomaaliya markii loolanka xoogan ay ku jirtay waxa uuna hay'adiisa sharci dejinta baarlamaanka ka dhigay qayb ka mid ah fulinta isla markaasina sida la doono loo maamulo waxaa la xasuustaa qaabkii xilka looga tuuray ra'iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre arrintaasi oo ahayd sida la aaminsan yahay go'aan ka yimid Villa Soomaaliya loona soo dhiibay gudoomiye Mursal waxaa sidoo kale jira arrimo badan oo sharci darro lagu tilmaamay oo gudoomiye Mursal uu fuliyay Villa Soomaaliya si kastaba hadda kala shaki xoogan ayaa soo baxaya iyadoo Villa Soomaaliya ay u muuqato mid danaheeda ka dhameysatay gudoomiye Mursal wax baahi ah aan u qabin halka dhankiisana uu bilaabay kulamo uu la yeelanayo xubnaha mucaaradka isagoona xoojiyay saamaynta uu leeyahay shirka musharaxiinta mucaaradka uga socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maadaama ay ku beeraan isaga iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa koobaad ee baarlamaanka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhanka kale wararka aynu ka helino magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxay sheegayaan in kulamo xasaasi ah xalay ay ka dhaceen caasimadda kulamadan intooda badan waxay yihiin kuwa ka dhacay Villa Soomaaliya Hotel Jasiira iyo sidoo kale qaybo kale oo ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Villa Soomaaliya waxay kulamo mas'uuliyiintooda ugu sarreeyay ka leeyihiin waxa ay ka yeeli lahayeen go'aanka ka soo baxa shirka xubnaha mucaaradka uga socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo hadda miisaan culus sii yeeshay maadaama ay ka qayb galeen gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi xildhibaano senataro qaybaha kala duwan ee bulshada odayaal dhaqameed culamaa udiin iyo cuqaal kale tanina waxay tahay mid sii xoojisay saamaynta shirkaasi uu yeelan karo iyadoo Villa Soomaaliya ay kaga weynaatay xaaladda halkii markii hore ay filaysay
iyadoo intaasiisha ku wada haysa madaxda filla Soomaaliya waxay kulamo xasaasi ah ka yeesheen waxa kaga gudboon inay ka qaataan go'aanada ka soo baxa shirkaasi iyadoo sida xogaha warqad uu ku faansan yahay la isla meel dhigay in la raadiyo kaarta siyaasadeed oo xaaladan lagu qaboojin karo filla Soomaaliya waxay diyaarinaysaa wada hadal ay la farto xubnaha mucaaradka iyo kulamo uu la qaato madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo la doonayo in lagu qanciyo waxyaabaha hadda tabashooyinka ay ka qabaan ay ugu horeeyaan guddiga doorashooyinka oo ay sheegeen inay ka mid yihiin xubno ka soo galay hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo sidoo kale xafiisyada dawladda federaalka Soomaaliya aysan aqbalaynin doorasho guddigaasi ay maamulayaan inay ka qayb galaan waxaa socda kulamo iska soo horjeeda oo gudaha caasimadda ka dhacaya waxaase filla Soomaaliya dhankeeda la sheegay markan in ay xaaladda u jeesay sidii xal lagu gaari lahaa shabakada wararka ee warqaadtii baad naga daawanaysaan wararka aynu ka helayno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo kulamada ay la qaadanayeen musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxay sheegayaan in ugu dambeyntii lagu guuleystay in laga dhaadhiciyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada isbedel inay ku sameeyaan xubnaha guddiga doorashooyinka ka midka ah ee loo tiirinayo inay ka tirsan yihiin NISA iyo xafiisyada dawladda wararkaynu helayna waxay sheegayaan madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor inuu aqbalay isbedel inuu ku sameeyo xubnaha guddigan ka soo galay dhinaca galmudug ee lagu eedeeyay qaarkood inay yihiin xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA kadib kulamo ay iskaga daba laabteen xubnaha loo xil saaray ee ka tirsan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha hore ee dalka Xasan Cali Kheyre Daahir Maxamuud Geelle iyo kuwa kale oo uu ka mid yahay Mustafa Dhuxulow waxaa la sheegay kadib kulamo badan oo ay la yeesheen iyo wada tashi badan inuu aqbalay ugu dambeynta isbedel inuu ku sameeyo xubnahaasi tanina waxay qayb ka noqon kartaa in filla Soomaaliya isbedel uu ku yimaado qorshaha doorashada ay ku wajihi lahayd dhanka kale waxaa la filayaa amaba lagu dhow yahay sida xogaha ay tibaaxayaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada in iyakana lagu qarciyo in isbedel ay ku sameeyaan xubnahaasi xubnaha ilaa iyo hadda kuwa loo diray ay ka dhaadhicinayaan ayna ugu badan tahay inay qaataan waxaa ka mid ah madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen oo loo diray xubno uu ka mid yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhinaca kale filla Soomaaliya oo arrimahan basi faansaneed ayaa waxa wufuud ay u kala diraysaa maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo gaaray magaalada Baydhabo ayaana la sheegayaa inuu ku wajahan yahay maamulada Galmudug iyo Hirshabelle si arrimahaasi uga hortago saameynta maamul goboleedyada ay ku yeelan karaan musharaxiinta ku shirsan magaalada Muqdisho oo u soo afmeero wixii war ay ku soo kordhana wararkeena dambe ayaan ku soo qaadi doonaa insha Allah imikana senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka tirsan mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay khilaafka ka dhashay arrimaha doorashooyinka isagoona aad ugu eedeeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guulad Qadar iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA Fahad Yaasiin waxa uu sheegay in labadaasi nin muddo dheer uu ka xishoonayay balse hadda kadib aan loo dul qaadan doonin isagoona ku eedeeyay in siyaasadda dalka ay cuuryaaminayaan Mahdi Guulad reer waqooyi waa inaga celin waayeen haddii amxaar leedahayna way naga celin weysay annagana inaan sii dhowrano ma aha ayuu yiri Muuse Suudi Yalaxow isaga oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu yiri Fahad Yaasiin reer oo Xasan waa naga cishan waayeen waxa dalkeena ku ciyaarayana waa isaga ayaa la leeyahay anigoo og in labaduba aysan eed lahayn ee uu Farmaajo yahay ninka arrintaani oo dhan geed fadhiga u ah haddana waxaan jecelnahay inaynu iska qabanno iyaka ayuu yiri Muuse Suudi Yalaxow senatarka ayaa sheegay in musharaxiinta shirku uga socda magaalada Muqdisho ee diidan sida ay wax u socdaan ay ugu damqasho badan yihiin sida wax loo maamulo sida uu hadalka u dhigay si kastaba waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la iska qabto Fahad Yaasiin iyo Mahdi Guulad Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxa uu sheegay in iyaka ay yihiin kuwa qasaya xaaladda siyaasadeed ee dalka xiisadda hadda jirtana abuuray shabakada wararka ee warqaadtii baad naga daawanaysaan la taliyaha amniga qaranka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana uu la kulmay madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoona soo gaarsiiyay fariin uga timid ra'iisul wasaaraha Itoobiya la taliyaha markuu soo gaaray Muqdisho waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay la taliyaha amniga ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo safiirka Itoobiya ee Soomaaliya safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu bartiisa Facebook ku shaaciyay kulanka la taliyaha amniga qaranka iyo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoona sheegay inay weydiistaan waxyaabo kala duwan sida howlgalka sharci fulinta ee dawladda Itoobiya ay ka wado waqooyiga Itoobiya la taliyaha amniga qaranka Itoobiya iyo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen howlgalka ay dawladda Itoobiya gobolka Tigreega ka wado waxaana madaxweynaha Farmaajo taageero u muujiyay howlgalkaasi
safiirka ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha uu muujiyey midnimo iyo taageero ku aadan howlgallada sharci fulinta ee ciidamada dowladda Itoobiya ay ku weerarayaan gobolka Tigreega. madaxtooyada Soomaaliya ayaan weli ka hadlin kulankaasi iyadoo Itoobiya ay horay ergooyin ugu diratay dalalka bariga Afrika si ay ugu sharaxaan mowqifka Itoobiya ee dagaalka ka socda gobolka Tigreega. socdaalka la taliyaha amniga qaranka Itoobiya ayaa ku soo aadaya maalmo uun kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad xilka looga qaaday war-saxaafadeed wasaaradda arrimaha dibadda ay uga hadashay xaaladda Itoobiya isla markaasina loogu baaqay xukuumadda Addis Ababa in wada hadal ay ku xaliso xiisadda xilligan ka taagan gobolka dhaca waqooyiga Itoobiya ee Tigreega. ugu dambeynna golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir waxay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya. shirkaasi oo ahaa mid muhiim ah waxaa looga hadlay xaaladaha amniga iyo sidoo kale siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. shirkan oo u dhacay qaab online waxaa ka qayb galay eragada qaramada midoobay iyo sidoo kale midowga Afrika James Iswan iyo Francisco Mandera. labaduba waxay ka hadleen doorka ay kaga jiraan taageerada geedi socodka xasilinta iyo sidoo kale dawladnimada Soomaaliya. James Iswan ayaa sheegay in wada hadallada siyaasadeed ay muhiim u yihiin wada qabsiga iyo sidoo kale in xaaladda Soomaaliya xal waara laga gaaro. waxa iyaguna ka hadlay wakiilada golaha ammaanka oo ay ka mid yihiin wakiilada Mareykanka, Britain iyo Francisco iyo kuna bogaadiyay in la xoojiyo wada shaqaynta iyo sidoo kale wada socodka Soomaaliya. ugu dambeyntii waxaa shirka ka hadlay oo soo gabagabeeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ka warbixiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoona sheegay in dawladda Federaalka Soomaaliya xilligan doorashooyinka ay ku wajahayso qaab furan ayna maamulayaan guddi xirfad u leh oo filla Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka yimid sida uu hadalka u dhigay. guud ahaan taasi aan ku soo gabagabeynaya warkaad kala socoteen warqaa tube daawad haddaad ku cusubtahay channelka nagu soo biir subscribe dhowr kuma kadibna fura gambaleelka waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya hela xogaha iyo macluumaadka halkan aynu ku soo daabacno tan iyo kulanti damba nabadeed.